Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. holac Somali TV subscribe please. Haddaba saqda dhexe habeenimo aan soo toosay sariirta waan ka kici waayay saacadu waxay ahayd 9 saac habeenimo baalkana soo kor istaagay doonta go'an carar hooyadana badbaadi haddii kala xubneedu waxaan ku gadaa darkweb marka waxa waa internetka qarsoona meeshaas halis waay okay diyaar waay aniga hooyaday la hadlayo waxba ku sameyn please anigana farxiyaa la yiraahdaa aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdilatiif sheekadan inay igu dhacayso uma maleynayn hal sano ka hor igu dhacday habeenkaas asxaabteeda la joogay xafladda lahayn meesha pizza iyo wax walba ku cunaynay waraha dhamaandhocyo sawira galena saaxiib sawiraan soo galnay bis aniga xaafadda imaada waa qubaysta waa seexday laakiin hurdo way iga soo dhacweyda oo sariirta hoosteeda qof ay igu jiray markii dambana waxa ay siri talo maxaa qaldan indhaan kala qaaday saa arintaas uga salgaaro ilaa markiis markii dambe waxaa arkay gabadhan timaheeda way madow yihiin cambuur cad xirneed dhiiga ku daadsanaa markaas ay igu tiri waryaahe caawa ku dhameynaa intee gali doontaa yah mandhoco dhale dhiiga ka wada socday dhaawac fara badan ku yaal gabadhan anigana markii dambe waxa yiri caawiya dhibaato ku sugan haddaba subaxii dambe markii la gaaray waa soo toosay indhahayga waxay hayeen albaabkan sababtoo ah waxa isiri xal waxa ku riyootay bal soo fiiri shaqadeyda imaaday markaas waxa isiri war xal waxa ku riyootay marumba mise waa been mid kale waqtigana aad u socday habeena la gaaray sariirteedan ku soo noqday saacad waxay ku beegneed 8 saac bar habeenimo habeenkii saddexaad gabadhan way imaaday ayadoo qaylinaysa hadii anigana cabsi ma dhahdaa ilaa markiis gabadhan gacanteedii rabtay indhaha inay iga geliso wax walba mugdi noqdeen waa soo booda anigana isla markii waxaan galay online ka laptopkaygan soo qaatay waxaan ku qoray sheedamaha ereyada ma jiraan waxa ii soo baxday sleep paralysis oo laga wada hurdo la'aan baa jirto adduunyadan habeenka waxay ka dambeeyay gabadhaas ismaana arkin inay idishana way rabtay saxaabay la gasaara mahadsanid haddaba maalintii isniinta Cabdilatiif timihiisa aad bay u badnaayeen wuxuu yiri timaan ku daalay 25 sanana jira waa inaa timaan xal u keenaa meesha marka jeel iyo balaaya u saarnaa iyo lotion uu marmariyay timihii gacantiisu ku jarjara xataa ma khasuumo qaadan waa nin waalan bis markii dambe talaadadii la gaaray timihii sidii ahaayeen laakiin haddana way sii kordhayeen waaw timihii qatari noqdeen maalinta arbacada wuxuu soo toosay timihii soo badan warniyo ani timaan seeyela bis maalinta khamiistana wuxuu soo kaca haddana timihii soo dhaadheer faras camal war quruxlo waa noqday caadi mihi waaw gabadhii aragtaa way jeclaanaysaa bis muraayadu isku fiiriyay jimcadii markii la gaaray timihiisa way ka sii dareenbo dhaadheer ma dhahdaa gabar camal oo noqday wartimaaniyo way igu sii korayaan bal aad u timo jira soo orda ninkan waryaha shaaribo weyne timaan iga gooniyo way igu sii kordhayaan isla markii waa laga xeeray timaha waa waray maalintii sabtida markii la gaaray Cabdixaliinkii wuxuu soo toosay timihiisa sarta dhan qabsaday wartimaan shalaaba soo jiraaye maligu sixir talow maqasu u qaatay wuu jarjaray haddana uu soo orday wiilkan naxdin dartiis ilaa markiis maalintii dambe banaanku soo aaday Cabdixaliinkii markaasa timihiisa aad ay u sii kordhayeen moogtahay
wuxuu sameeyey meeluu seexday marka oo caws caws ah. Bis timihiyaa ku buuxsamay haddii qayluu bilaaba ninkan. Asagii dhan timaa qariyey. Hal maalin marka waxaa dhacday booliiska inay arkaan gacan meesha kasoo lalaado timo waaweyn sida banooni camal. Duqsiyii balaayana way cunayeen. Booliiska arrintii markay sii baareen waxay arkeen Cabdixaliinkii oo dhintay oo skeleton noqday, macnaha lafo noqday. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabi like saara Holac Somali TV subscribe dheh. Anigii xaaskayga dagaal naga dhaxeeyay oo mar walba waxay oran jirtay war hadda biilkii aawe. biilka maxaa la yiraahdaa soota shala qaadata ma 500 darbaaxadan gab waraa nin fiican ma tiid wallaah ana aqaana sida ku yeelay aydan mar walba waxay leedahay wax ma taraataay. Haddaba xaaskayga markay baxday banaanka u soo baxay habaa qaadna dariskayga saytiin xaaladdiina ka warama. Haddaba saacado badanaa ka soo wareegatay xaaskayga xaafadda kumay soo noqon. Anigana shaki ay galay waa ka walwalay. Booliiska wacay waxaa isiri way luntay. Booliiska markay imaadeen arrintii way baareen. Waxay yiraahdeen xaaskaada goorma kuugu dambeysay. Aniga mar hore ay igu dambeysay. Dariskii wareysatay ma walaa ma arkin. Okay, adiga xaaskaada dadaa waxay yiraahdeen waa la dagaashay. Taas ma dhaba mise waa been? taas waa run, waa isdagaalnay laakiin hadalladeeda xad dhaafa gabadhaas. Ilaa heer xuna isla gaarnaa mararka qaarkiis. Okay, waa diyaare. Adiga laakiin xaaskaada ama dishay. Maya aniga markaas waa maqnaa, shaqaan ku maqnaa. Dariska xataa wareysto ay ka cadeen ku siinaa. Dariskii la wareysta banaanku nala jooga marna shaqo ku maqnaa. Okay, diyaar waaye. Beriyaan soo laabanaa arrintaasna waa baarayna. Beriyaa la gaaray. Waxay tiri xaaskaada waa soo helnay jirkeeda soo raac. Is buundada gadaasheeda la keenay. Qofta xaaskaada soo ma waa ayada. Waa ka xumahay wallahi saan meel noqotay. Xaaladdeeda aad bay u xumaatay runtii. Waxaa kuu sheegaya inaa isdejisid wax walbana diyaar noqonayaan. Xaafadda markay imaado waa qoslay. Sababta ma garan kartaan? Xaaskayga anaa gacantayda ku dilay oo waxaan ku riday firinjeelka qabow bay noqotay. Haddaba idinka daba geeyo darbaaxada markay igu dhufatay. Anigana magaalada maray suuqa ku arkay baabuurka ku dhuftay. Waxay ahayd maandhacad xun weyn ay dhigtay. Asxaabi like saara waana ku mahadsantiin daawashadiina. Holac Somali TV hadda ku cusub taana subscribe dheh. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life